بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قدوميها قولها شعبك، قدوميها أقل كسرة، رئيس الوزراء محمد حسين روبلة، رئيس الوزراء كحيينك، رئيس الوزراء هو رعضان ده حكى عبسنا يعني إنه إلى دربي ويقصد دمي بركة رئيس الوزراء هنا xubnaha golaha shacabka halkan fadhiya aqalka sare golaha wasiirada inta kale cid walba magaca iyo maamuuska ay meeshaan ku fadhido dhammaantiin ayaan idinku salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahad celiyo ilaahay subxaanahu watacaala, uma waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya injineer maxamed xuseen roble iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo golaha wasiirada iyo shaqaalaha kala duwan ee xafiiska golaha ra-iisul wasaaraha. runtii ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu soo shaqeeyey xilli aada u adag oo dalkeenna ay ka jiraan khilaaf siyaasadeed oo dhib badan runtii, kaas oo qaatay muddo. wuxuu dhaxlay aragtiyo kala duwan iyo dadkii siyaasado kala fogfog oo runtii markaas halis ku noqon karay degenaanshaha iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho. xilligaas adag runtii dad fara badan oo laga yaabo inaan anu ku jiray waxaan u arkaynay inay aada uga adag tahay prime ministerka in uu handal gareeyo ama uu hago barnaamijkii doorashada ee runtii aadka loogu kala fogaa. waxaan aada uga baqaynay inuu ku barbariiqdo oo asaga oo dhaawacyo badan qaba uu xilligan soo gaaro. wayna dhici kartaa in xataa talagalku wax mararka qaarkood siyaabahaas uu ahaa, laakiin tusbaxaa yaree uu haysta iyo ducooyinku waxay keeneen in uu ilaahay ka samato bixiyo oo asagoo hero uu ka baxo galabta xafiiska. marka waxaan aaminsanahay in uu mukhlis ahaa oo ikhlaas iyo allabari iyo dadaal inuu uga soo gudbay marxaladdaas dhibka badan ee qodxaha badnayd ee runtii aan aada uga wada cabsanayna kulligeen. isaga iyo tiimamkii la shaqeeyey iyo odayaashii marka dambe majaraha u qabtay labada aqal runtii iyo saraakiishii amniga iyo dhammaan intii ka shaqaynaysay waan u mahad celinaynaa. waxaad dalka ka soo gudbiseen marxalad aada u adag oo xusuus runtii ciddii ka naxaysa dalkan xusuus ku reebaysa mararka qaarkood sidii dadkeennu ay u niid jabsanaayeen iyo sidii ay halista u gashay soomaaliya. waxaa la yidhaahdaa dadka soomaalidu ma xusuus badna, markuu wuxuu saa u dhammaado dadku waa isku wada midun. kii dadka eber ka dhigay oo laayay iyo kii dadka badbaadiyey 2 bilood kadib isku midun bay noqonayaan. adduunkana sidaas kama jirto. qofku wuxuu leeyahay sijilli iyo document lagu yaqaanuu leeyahay qofku iyo record. waxaan rajaynayaa mudan ra-iisul wasaare in markan soomaalida xusuusteedu ay yar dheeraan doonto oo laga xusuusnaan doono. waxaan ballan qaadaynaa xukuumaddan intay jirto in aan dadka ku xusuusino marar badan, siyaabo kala duwan inaan dadka kuusoo hor istaajino, siyaabo kala duwan iyo munaasabado kala duwanna inaan kaaga xusno. marka aada iyo aad baan kaaga mahad celinayaa. mahaddaas runtii waxaan u celinayaa ra-iisul wasaareyaashii hore ee dalka. haddaan kooyay sheekadu maaha. waxaan waa cumulative iyo waxyaabo laissoo kor saarsaaray oo ninba maalinba meel ka soo qaadayo, ninba maalin keenayo.
kuwaa meeshan soo galay iyada oo aan sidan ahayn iyo si ku dhow oo la wada degan yahay oo burbursan tahay oo aan kuraas oolin oo ayna dawladda ka jirin waxbay ku bilaabeen meel bay soo gaarsiiyeen waanu mahad celinaynaa kuwaa ka sii horreeyey oo talyaani ka beddelayba oo soomaali ka dhigay waan u mahad celinaynaa qof kasta oo waddankan soo xukumay especially prime ministeradii kala duwanaa ee naga horreeyey kii qaada ku soo daray iyo kii kursi ku soo daray iyo kii xaashi ku soo daray intaba waxaan leenahay waad mahadsantihiin intii dhimatay allah u naxariisto inta noolla guul cibaado iyo caafimaad baan u rajaynaa shaqaalaha oo p s ku kow ka yahay oo runtii had iyo habeen mar walba u taagnaa in ay najixiyaan siyaasadda xukuumadda iyagana waan mahad celinayaa golaha wasiirada oo runtii dadaal badan galay oo qof waliba meesha uu joogay ka soo shaqeeyey waan u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed oo runtii ku aaminay oo kula shaqeeyeyna waan u mahad celinayaa wasiirkii hadlay saaxiibkay ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta uu mahadsan yahay wax kasta oo fiican oo wanaagsan oo la sameeyey oo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu sameeyeen waan uga mahad celinaynaa waxna waan kusii dhisaynaa halkaasaan kasii bilaabayna waxaas fiican ee meeshaas laga sii bilaabayo wasiirku ka mid yahay hadduu fiican yahay waxaas fiican buu ka mid yahay haddii uu kursi jaban yahayna kursiga waa la beddelaya aad iyo aad baan runtii wasiirada ugu mahad celinayaa intaas waa iska kaftan shaqaalaha iyo saaxiibadayda aan isku wareegnay ee ana laygu soo wareejiyey ayagana laygu soo wareejiyey waxaan ka rajaynayaa shaqo wanaagsan saaxiibtinimo ayagana inay soo dhoweeyaan anigana waxaan ballan qaadayaa in aan si hufan ula shaqayn doono way dhici kartaa inaan idin soo kallihiyo way dhici kartaa habeenkii seexda inaad idin dhaho way dhici kartaa inaan xafiisyadiina soo galgalo laakiin waxaan hubaa inaan idinka xishoon doono waxaan hubaa inaan idin respect garayn doono laakiin waxaan hubaa waxa inoo qoran inaan tadbiiqin doono 100%. dad soomaaliyeed oo sharaf laa jooga meeshan oo civil servants ah iyo la taliyayaal iyo dad sharaf loo qiimo leh waxaad ka cabsantaan ma jiro mid saaxiibkiin oo halkan ka shaqayn jiraa imaaday waa wada shaqaynayna waxaan mar walba runtii aan ku dadaali doonaa ilaahay idankiis waddankan waxa hortaagan waa ognahay maanta meeshuu marayana waa ognahay maanta ajendaheenna koowaad waxaa waaye dadkeenna dhimashada baahidu ay keenaysa inaan ka badbaadino si aan uga badbaadinana waa inaan amnigiina aan sugno marka baahidii oon dadka ka badbaadino oon abaaraha dadka uga gurmano iyo abaaro keliya ma ahee berri hadduu daadad yimaadana dee qaylada un kuma jiri karnee inaan xal waara la nimaadno iyo si dadkeenna aan u badbaadino xal waarana aan ula nimaadno caqabadaha ugu waaweyn waa kuwa amniga inaan zuulino caqabadaha ay hortaagan saddexdaas arrimood oo isku duuduuban ayaa priority inoo ah waxa kaloo dhani way soo daba socdaan ayaga ayayna kaalmaynayaan waxaan rajaynayaa dalkani inuu aado prioritiskiisa wax kale lagama shaqayn karo haddii aan nabadgelyo la helin meeshaas waaye meesha bugta soomaaliya meesha u baahan xalkuna waa meeshaas innaga oo heshiisa oo mid ah innaga oo isku kalsoon inagu isku tashanayna waxaa lagama maarmaana inaan u dhaqaaqno sidaan dalkan u xorayn lahayn dalkan wuxuu u jihaysan doonaa inuu iska xoreeyo cadowga waxaan rajaynayaa in loo diyaar garoobo wasaaradda awqaafta sheekhu hadda uu wasiirka ka ahaa xil baa saaran wuxuu xil ka saaran yahay muslimiin baan nahay ha noo sheegto dagaalka aan meeshaas la gelayno ma sax baa mise waa qaldan yahay
ma baadil baa mise waa xaq waa inay noo sheegtaa wasaaradda ganacsiga waxaan ka rabnaa inay businesska abaabusho oo la aado xaggaa loo jeesto wasaaradaha qorshaynta iyo aan ognahay billariska ka shaqaynaya billariskaas way mahadsan yihiin waa wadaysiin laakiin prioritygeennana waa inaan ogaanaa wasaaradda maaliyaddu waa inay sidaas ogaataa waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay shacabka soomaaliyeed inay isxorayn doonaan waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay in aan badbaadin doono dadkeenna kadibna aan gaari doono xorriyad taam ah oo aan dalkeenna ku horumarino oo aan waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo dhaqaalihii oon kar u qaadna aan ku keeni doono haddii ilaha yidhahdo isku kalsooni baa loo baahan yahay niyadda oo la dhisaa loo baahan yahay soomaalinimaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in wixii horeo dhan la iska halmaamo waxaa horeo dhan wuu iska dhammaaday marka bog cusub iyo beijis cusub iyo qalbi cusub oo nadiifa iyo saaxiibtinimo iyo soomaalinimo iyo isjacayl kusoo dhawaada dhammaantiin aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaanan mar labaad runtii u mahad celinayaa dadka kasoo qabanqaabiyey iyo inta soo xaadirtay oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyeyaasha labada aqal waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu